haddii aad adigu hadda rabto inaad jimicsigaad bilowdo ama hore jimicsigaad ugu jirtay laakiin waqti dheeraad ka maqnayd oo aad rabto inaad hadda dib aad ugu laabato sidan ku bilow horta waqtiga anigu jimicsigaan bilaabayay intaasoo jeer ayuu hakad igu yimid hakad markaan ku leeyahay mar baa jirtay hal isbuuc intaan ka maqnaado haddana dib aan ugu soo noqonayay haddana hal bilaan ka maqnaado haddana dib aan ugu soo noqonayay haddana 2 bilood aan ka maqnaado haddana dib aan ugu soo noqonayay aniguna waan ogahay adna waad ogtahay oo taa waynu ka simanahay haddaba mar kastoo jimicsiga dib aan ugu soo laabto maan gelinahay meeshii aan wax ka bilaabi lahaa markaa maanta taasaynu si wanaagsan u gudagelaynaa waynu si wanaagsan isula eegaynaa intaynaan haddaba gudagelin ama aynaan isla eegin mid baan rabaa adiguna niyadaada aad ku hayso markaad jimicsiga xooga aad wado ayaad joogtayso jidhkaagu uu kala furfurmayaa sidoo kale jidhkaaguna jimicsiga uu la qabsanayaa markaad jimicsiga xoogaa ka maqnaato jidhkaagu uu iswada gelayaa taa waynu isla garanay waayahay haddaba jimicsiga haddaba sidaynu ku bilaabaynaa waxa weeye 2 cisho isbuuci ayaynu jidhka jimicsi siinaynaa imika waxaa laga yaabaa inaad niyadaad ka leedahay 2 cisho keliya ma raba inaan ku bilaabo jimicsiga waxaan rabaa 4 cisho inaan ku bilaabo gartay taa laakiin bilowga goolkeenu ma ahaynu jidhka isbedelo ee goolkeenu waxa weeye bilowga in aynu jidhkii kala furfurno oo aynu jidhkii diyaar garayno 2 cisho isbuuci ayaynu ku bilaabaynaa haddaba 2 cisho isbuuci waxa ku jira waa 7 cisho isbuuca bilowgiisa maalinka koobaad waxaynu jidhka jimicsi aynu siinaynaa waa qaybta sare oo keliyaata jidhka qaybta sare oo keliyaata ayaynu isbuuca bilowgiisa jimicsi aynu siinaynaa qaybta sare markaan ku leeyahay waa gacmaha waa garbaha waa xabadka waa dhabarka iyo caloosha gacmaha markay noqoto hal exercise oo waad wada samayso ayaa ka badan xabadka iyo garbaha markay noqoto 2 exercise oo waad samayso ayaa ka badan dhabarka iyo caloosha 2 exercise ayaa ka badan qaybtaas waa maalinka koobaad haddaba maalinka labaad markaynu u nimaadno waa goormo maalinka labaad haddaba jimicsiga aynu siinaynaa maalinka labaad jimicsiga aynu siinaynaa waa isbuuca dhexdiisa maaha dhamaadkiisa ee waa dhexdiisa isbuucii kaba soo qaad isniinta ayaad jimicsiga aad samaysay salaasada waad nasanaysaa arbacada waad nasanaysaa khamiista ama jimcaha labadaa mid ka mid a ayaad jidhka jimicsi haddaba siinaysaa maalinka labaadna waxaynu jidhka jimicsi aynu siin doonaa waxa weeye waa qaybta hoose qaybta hoosena waxay noqonaysaa waa lugaha keliyaata lugaha markay noqoto qaybta hore iyo qaybta dambe waxaa ka badan 2 exercise oo aad samayso hal exercise oo barida aad samayso iyo hal exercise oo qaybta hoose lugaha aad samayso intaasaad ku soo koobi kartaa haddaba waxaa laga yaabaa imankina niyadaad ka leedahay haddii aan isbuuca bilowgiisa hal maalin aan sameeyo isbuuca dhexdiisana hal maalin aan sameeyo maalimaha kale maxaan qabanayaa waxaad qabanaysaa anaa kuu sheegaya jimicsiga markaa dib aad ugu soo laabataa maad rabtaa hadda inaad bilowdo saan ku yidhi jidhkaagu wuxuu u baahan yahay in uu kala furfurmo oo inuu jidhkii iyo maskaxdii ay la qabsadaan jimicsigii haddaba maalimaha kale waxaad u baahantahay inaad xoogga saartaa ama aad u baahantahay inaad ka fikirtaa waxa weeye waa 1 waa cuntada maalinkii aad cunayso 2 waa biyaha aad cabbayso 3 sidoo kale hurdada aad seexanayso 3daasi qayb weyn bay ka qaadanayaan isbeddelka jidhkaaga intuu jidhkaagu kala furfurmayo in aad maalimaha kale xoogga aad saarto cuntada biyaha iyo hurdada taa waynu isla garanay haddaba 2 cisho aynu jimicsiga aynu tegayna haddaba waqti intee leeg baynu ku jiraynaa 2 saacadood baynu ku jiraynaa ma saacad bar baynu ku jiraynaa maya waxaynu jimicsiga kaliya ku jiraynaa waxa weeye 35 daqiiqo – 35 daqiiqo
35 daqiiqo keliyaata ayaynu jidhka jimicsi aynu siinaynaa haddaba sababtaynu 35 daqiiqo jimicsi aynu u siinayna jidhka aynan u siinahay saacad maxay tahay jidhkaagu wuxuu u baahan yahay in uu la qabsado haddii aad saacad ama saacad wax ka badan aad ku jirto tiimaanaysa waxa weeye inuu jidhku ku wada xanuuno taa niyadda ku hay marka 35 daqiiqo maalinka koowaad inaad jidhka jimicsi aad siiso maalinka labaadna 35 daqiiqo aad qaybta hoose jidhka jimicsi aad siiso inta aad ku soo koobtood jidhka si wanaagsan aad u kala furfurto isbuuca koowaad iyo isbuuca labaad iyo isbuuca saddexaadba intuu jidhkaagu jimicsiga kala qabsanayo laba shay oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa jira haddaba markay noqoto ee aad rabto inaad jimicsiga aad bilowdo ama hore ugu jir ama hadda ha noqoto inaad rabto inaad bilowdo ta koowaad waxa weeye dhaawac inaanu ina soo gaarin jimicsiga markaynu hadda bilaabayno ama hore aynu ugu jirayno dib ugu soo laabanayno adiguna waad ogtahay ma rabtinu dhaawac ku soo gaadho haddaynu maalimo badan ku bilowno waqti badan jimicsiga aynu ku jirno maalin kasta bilowga khaasatan dhaawac baa imaanaya taa niyadaada ku hay ma rabtid inuu dhaawac ku soo gaadho qodobka labaad haddaba joogtaynta in aad wixii aad joogtayso qof kasta way u fududahay inuu hal mar sameeyo ama laba mar u sameeyo ama bishii hal mar u sameeyo qof kasta way u fududahay joogtayntu aad iyo aad ayay muhiim u tahay si isbeddelkaa doonaysaa uu u yimaadaa labadaa shay waa laba shay ood u baahantay inaad ka fikirto bilowga markaad jimicsiga aad bilaabayso waxaan rajaynayaa in aad si wanaagsan aad u fahantay intaa hadda aan ka hadlayba waxaa inoo balanaa fiidiyowga xiga